السلام عليكم غير شرفت لكم سوداء كللي تي في ان ما انت halka xal ku soo gudbinayna qiso jacayl oo aad iyo aad yani xiiso badan waana qiso aad iyo aad u wanaagsan in qisadan waxa ku bilaabanaysaa sidaan waana qiso dhab ah nin iska shaqeysto oo ku nool wadamada qaliijka ayaa muddo 4 sano ah markuu shaqeysanay oo helay lacag ku filan ayaa waxa uu doonayay inuu guursado markaas baa wuxuu u tagay abiis oo ahaa nin عالم أو وذا إمام مسجد هاي ونقعد إنه أدور جبرت وجرسنا هاي ولي بقى صندون إنه أرك جبر عمل لكلمه إلا هذين كجور كمويه كد أبي أو عن عالم أو دين الإسلام كعر أيا أدون جبر دين له لكن عن خروح بنين كد مركي لو جرجي أيو خلق جيف كأوجل جبر دي يده حجابا أدنى حشانسه كد بوس ودواد حجاب كأيو كقاعد ميسه gabadhii wuxuu fileen ayuu kulmay aad ayuu uga naxay yani muuqaal ahaanteeda maysan caajibin wuxuuna isweydiiyay abaa muxuu sidaan kawada oo kuugu daro gabar aan qoxonayn sidaan u falxun kadib isagoo iska niyay jabsan ayuu iska seexday habeenkii saaqdaxa markii la gaaray ayaa gabadhii kicisay ninkeeda oo ku tiri kaalay duko salaatul leyl markaas ayuu ka dhaga adeegay oo ka diiday ayadoo ka quusan ayay kacday oo biyo weesaah u doontay biyo ayayna qaar ka mid ah ku shubtay markuu uu kacay ku dhadaalada qalbigiisa taabtay waan ogahay inaad iga niyijibtay waliba waan ogahay inaan fool xumahay laakiin anigu guurkaaga waxaan u ogolaaday hal arintaas oo ah in aan fuliyo oo aan ka faa'iideysto ducada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ahayd Allah u naxariisto ninka habeenkii u kacay taajud una kiciyo naagtiisa kadibna haday kici weysana ku daadiyo biyo si ay u kacdo sidoo kale naagta taajud u kacda kadibna ninkeeda u kiciso taajudka hadduu kici waayena biyo ku daadayso allaha u naxariisto aakhiri adduunba marka sidaas ayaan rabay inaan sameeyo si ilaahay igu naxariisto waxaan ogaa fursadda la igu guursan karo inay yar tahay sababtoo ah ma qurxooni nin irabana malahan ninkii aad buu isku ceebsaday uuna kacay salaadii ayayna wada dukadeen asaga iyo xaaskiisa markii ay ka baxeen salaada sheekha sheekada ka sheekeynaa wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay ninkii wuxuu yiri markaan salaada ka baxay oo aan gabadha wajigeeda fiiriyay waa banaagta dunida ugu qurxoon ee aan abad arkay subhanallah u fiirso sida rabbi ugu abuuray jacaylka ninka qalbigiisa daqiiqadeer gudood walaal hadii aad qisadan la cajabtay ama aad ka heshay fiidiyoga si share garay like na saar subscribe na dheh channelka si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gali doono annagana dhiirigelin ay nagu noqoto waad mahadsantiin dhamaantiin daawadayaasheena sharafta leh maalin wanaagsan